بسم الله الرحمن الرحيم مركلة مسألة كلا وحوش كاني أن ربنا أن كهذا الله عضي إسقرحنتي عترنتي قرش كاسي على جربا قرش على جربا halkan waxa laga sheegay maasha lisid markaas yiri guursadaya wada hebelo maasha lisid guursadaya tu guursaday bis khalaas wala aan xaraga wajirinba bilaayan rabay isku sharaxay daan helay khalaas guri hadii la joogo islaantii joogisay rabtaa adiguna in lagu haysto waa rabtaa adna wax haysto waa rabtaa wax lagu wada joogo mugta mukusha maahane nacaan la socoto nacaanida la iska rabaa nacaanida marka xakamada marka adagsiga kamida qodobada mar walba haysato kamida waxa kamida inay mar walba diibka soo sheegno la ogolaa oo sharci ogolaa horta ugu waa in mar walba xataa wixii shubha ku jirta xataa culum isku saartaa isticmaal atarkan barfunkan alcohol ku jirta alcohol kuma jirto alcohol waa nijaas okay darta isticmaal shay ka soo adii بديلك وجور محا بدر وغليه محا عادي سو دبي hadii xataa warba soo galay maxaa adiga ciidadada muran galiyay ciidadada maxaa muran galiyay ka guur atara jira mid oo khali min al-kuhul leeyahay jiro mid lagu leeyahay fihi nisba 121 ku jirto min al-kuhul maxaa adiga rabtaa nisbiisa u daar salaad qallu badal kala jiro bay war marka in caasata caadku waa diibka afka عطركي دي عطر وين مرستا وين يسقط حساه لكن ما يسقط حساه قلنا بغير محذور أخرى شيء شرع مديدين وين يبحث يسقط حساه مرة بضابط كاسة هسه هذه عطر مرسو وين شرع أقول يا ابن عضيسو يسقط حساه كلا يسقط روحي شرع وين أقول يا واحد مرسينيس عاد مرسينيس أقول له بالذات هذه هذا أنكسر ورمو وحنا عضك مركز أماليس لازم قبل حلاش وين waxa kamid ah laga baqar badan oo yani aad active in u yihiin laakiin adiga marka isticmaalaysid hadii xataa aad ku dirsatay waxyaalaha bahaaraadka مثلا dhagayara iyo aan goladay sheegay heel iyo aad ku aysatid yani waa nur ala nur adagii oo marka hore ku filaan oo atar ku noqdo afka diibiyo hadana yani afka inuu bahaaraad heel ka soo arfo dhagayara iyo magaciisa aad ku isticmaashid waxa la yaab loo caafimaad dheeraadna way tahay laga yaab in jursuuma iyo maartay waxa weeye ay disho beenama adii midkan kala afka aad laga yaab ku dharabto midkan dawada magaciisiga iska baran bufta waxa la bahaaraadka waxna carfiya geedkana marahana in aad maartay marka wixii marka xaaladaas caadisiga waxay aad u sii muhiim u tahay markii mucaashara jirto muhiim u sii tahay oo la isdheehayo oo dalwadii qofood yani ay isu soo dhawaanayaan inay gabadha afkeeda wanaajiso asna afkiisa wanaajiso afkeeda kaliya wax ka soo baxan ma afkeeda ma afkiisana waa soo kale qof kale uu dhibsana soo ma waxa kamid ah diibka laftiisa waxa kamid ah hadalkaagu inuu hadal naxariis leeyahay diibka kamid ah nagnimadu ma moogtahay magaciisa aan ma moogtahay ma garat xilliga mu'aanasada jirta amlis uu heshanay mar walba isku dhawaad uu jiro mar walba ay si wanaagsan tahay in qofka ay iska warqabto ninkuna iska warqabo okay gabadhu hadana wala yukallafu ma la yajibu alayhi hatta thaman at-tayb gabadha ma lagu asaga maartay wuxuu dhahay lagu kalifi maayo ninka lacagta diibkaas isku maartay isku qurxinayso ma lagu kalifayo ayuu leeyahay wallahu a'lam laakiin waxa laga yaabaa de waa mas'ala ayada masaar asaga masaar uu leeyahay waxyaalaha maartay la isku waxaynayo oo isku tarinayso masaar kadib casrada wanaagsan saas waa dadka hadda ma xisaabtamaan moogta nolosha in hogaa la xisaabtamo oo qofba intaas aan leeyahay waxa ka wanaagsan yani sida hadda dadku bulshada u badan tahay dadku inay yani wax isla qabtaan
ninkii gabadhu ay inta asaga ka maqan ay dhamaystirto gabadha asaga guri ka maqan iyo gabadha ka maqan dhamaystirto asaas nolosha caadiga ku wanaagsan tahay laakiin haddii ay miis timaado sharciguna waa yaqaanaa haddii miis timaado miis hadday timaado intaa ka badan iguma lihid intaas ka badanna ma lihid waa sharci ugu yaqaana saana ma diido oo ah anaga wax issanana ma diido okay waxa waajibku uu leeyahay hadana mar kale wax kasta oo gabadhaas ninka inuusan jeclaan oo uusan hami ka gelin sababi kara waa in gabadha iska ilaalisa wasaq kasta oo gabadha ninka sawjka ka eri karta oo maaragtay istimtaaca iyo inuu soo dhawaado inuu hamiyad meesha ka saari karta waa in gabadhna ay ka fogaato wax kasta waxa laga yaabaa dadka isu dabeecad maahan hal mar oo adiga qofka ninkaana ku arko maraayadu ka jabto ilaa qof ilaasaanaba laga yaaba kaliya indhahaaga fiish kaliya uu ku arkay bis laga yaaba inuu asaga u hami jabo ama adoo marka gabadhu sida fiican yani waa in la aqoowayo naaka loo maleeyo marka guriga ninku soo galaaba ka wanaagsan moogta inaad adigii inaad mar walba noqoto ma dayib wuxuu kale masale ah gabadha haddii aan laga caqiiqayn see yeelaysaa haddii weligeeda abid matalan uusa caqiiqin ka qaalin markay dhalatay waxaa sunnahu leeyahay an tacuqa can nafsihaa inay nafteeda ay maaragtay neefka qasho watufariqaha cala alfuqaraa fuqaradana ay maarata u qaybiso sidaas ayaa bacd albuluuq waa ogoya haddii iyadoo caruurnimada aan loo soo sameyn markay qaan gaarto way iska qali kartaa ayuu leeyahay iska qali kartaa sidoo kale wuxuu ka hadlay gabadhu waa anagaa nidhi wascatari kartaa iscarfida xaggee isku carfine maxal ma laho maxalay leedahay goob ayay leedahay meel ay ka dhaqaaqdo garoonaho oo iyagu ay waxaa weye meel imaamusho ay leedahay meesheeda marka banaanka markay joogto iyo markay guriga joogto ilaa sunnada ma noqon karto weliba marka watamtanicu min الطيب تضيب في غير بيتها ولغير بعلها حتى تمتنع منه للنساء خصوصا للنساء هذا الزمان وفرسو مهم وايه كتاب كان marka la qoray waxa laga yaabaa taariikhdan ku soo sheegnay sheekh alifay taariikhdiisa 724 geeridiisu ahayd ka hor una qoray dabcan kitaabkan xilligaas ayuu masaladan wuxuu leeyahay gabadha waa in diibka iyo ay gurigeeda meel aan inaysan isku wanaajin gurigeeda meel aan hayn waa inaysan isku wanaajin bal sharcigu wuxuu amrayaa haddii gabadhu ay guriga xala wixii ay marsatay weli ay ka carfayaan waa inay qabaysataa suuqana ay u bixirta markii xalna waa inay iska dhigtaa jirkeeda hadduu ka carfayaan waa inay iska ka qabaysataa qabayska waajibka waa ka qabaysataa marka gurigeeda markii aysan joogin waa inaysan waxyaalaha yani dadkay ku fidnoobi karaan ilaa guriga ninkeedii waa ka baxday maogta mar dibooskeedii ka baxday ummad kale u socota ummadda kalena marka ummadeedii maan isku ummad maan waa dad ay fidna iyo taxadar iyo maarata uu ka dhexeeyo oo la kala ilaalinayo sharcigu kala ilaaliyo dadkii awliya u marsanaysay waxay u marsanaysay qofkii ilaahay uu nolosha ugu daray oo la rabay inay isku soo dhawaadaan maxaba dhexdooda iyo ulfa ay ka maarata ka abuuran haddana maxaa la rabaa inaan gabadhan qofna soo hunguriyeyn qofna uusan damac ka gelin ayaa la rabaa marka waa inay marka ay ujeedaas ilaalisaa xataa uu dhaafiyo halkaa u fiirso waxaan moodaa hadda xilligaas yani maanta gabdhaha maanta jooga iyo faasiqnimadooda sida faasiqaadka maanta si u badan yihiin gabdhaha faasiqaadka iyo nimanka faasiqiinta si u badan yihiin oo dacad ilaahay ka baxsan oo aan diin iyo damiir midna lahayn si u badan yihiin maalinkaas barfiir ninka sheekha kitaabka qorayay oo lahaa xataa waa inaysan iska ilaalisaa tamtanica minhu linnisaa dumarka xataa waa iska ilaalinaya khusuusan dumarka sanadkan joogo kale dumarka nisaa hada zamaan xilligaas uu leeyahay nisaa hada zamaan ayuu wuxuu leeyahay waa inaysan maaragtay aysan ku dhex marsan barnaamijkaas masale kale hadday baxayso guriga ka baxaysa maxay sameynaya hadday guriga ka baxayso say u baxay guriga markay ka baxaysa ay noqone khusuusan dumarka maanta jira waa inay joojiyaan kuwa wanaagsan xataa maaha waxaan ka hadlaynaa dad maaragtay oo fari ku fiiqantaa ma kuwa wanaagsan aan ka hadlaynaa kuwa wanaagsan latirkoodu gabdhuhu waa inay leeyihiin maryo u gaar ah raggooda iskugu qurxiyaan hadda waxay leeyihiin sida badan waxay samaystaan maryo ay dadka kala kula kulmaan oo aan meel guriga marna lagu gashanba
laakiin bilcagsi waa inaad maryo gaara aad u leedahay noloshaada maryo gaara waa inaad u leedahay beenima hadda aad maryo gaara u samaysay nolol aanba lagaaga baahnayn ee banaanka marka aadayso ama xaflad ka qaybgelayso ama aadayso maryo gaara u samaysato yakfiika maryo dharkaaga kugu filnaa wali waqtigan la joogo waa inaad xijaab aadan iska furin rag iyo dumar dhexdeed midna waa inaad ku furin waqti lagu jiro mataqaanaa waqti oo waxa waaye badeeca la goobayo lagu jira badeeca raadis lagu jira oo qofka hadduu xataa meeshaan nunjaanis uu soo waayo oo meel kusoo gala waayo oo risaaladiis usoo dhiibanaya gabadh usoo dhiibanaya imise gabdhaha la arkay iyagoo wanaagsanoo maxaajibaad ahoo aan weligood maaragtay iyagoo aan rag uusan arag iyagoo meelo kala nuxnuuxsanay yaa geeyey waxaa geeyey qof dumar ah oo isan iska jirin ayaa gaaday oo u geeyey kilaabul basharka doonaya inay iskaga macmacaystaan say u baxsaa wuxuu dhahay hadday gurigeeda ka baxayso lixaajatin baahiy u baxda gabadh muslimada gaba baahiy u baxdaa baahi way u bixi kartaa dan u bixi kartaa sharciya mashad mutakamkimatan takamkima waa maxaa iyadoo isqarinayso oo si wax dhumana camal oo kale ayay baxaysaa iyadoo aruursan mujtamacatan min qeyri takasur khuyalaa iyadoo isjebinayn oo saas aan laafiyaha ridayn saas isu kala bixinayn yaa ayay baxaysaa waa qaabkii gabadha ku baxaysa muslimada oo ay fidnada uga nabadgelaysa loogana nabadgelaya fii libaasin khaliid dhar adagna way ku baxaysaa oo jirkeeda aan tilmaamin amaan sheegayn amaan ka warbixinayn غير مقعقع waa dhar aan dhawaaqayn wax dhawaaqay labis dhawaaqay koob iyo wax wayna soo wadan sidoo kale walaa saqiilin dhar maxaan ku yiraahdaa ii sheeg amlasaho birqaayo oo sida maarta ama nuxaas oo bir oo kale oo biyuhu aysan maartay geli karin oo kale waa inuu noqon dharkaas noqon marka waa hay-a ama qaab gabadha u baxaysana waa laga hadlay waa inay ka fogaato sidoo kale inay idhaari radiifiha xilmaheeda qayb kamid inay muujiso waa inay ka fogaataa dhar aan muujinin waa inay sidaata marka horena in badan dumar ka mida oo weliba ay ka muuqato marka dharkooda aad fiiriso xishood uu ka muuqdo waxyaalo oo la yaab leh oo as leedahay qofka yani ayaa ka muuqda waxaa laga yaabaa dun ayaa ama garab ku tolaya duntaas waxay sahlaysaa dhowta jirka inuu soo dhawaado oo marka iskala bixido jirka uu muuqdo ama saynta ay muuqato ama garabka uu muuqdo ama gacantii muruqi uu muuqdo waa dhaqan ciyaalsiyo waa dhaqan waxa waa dhaqan xumo waa qof markaa fiirso waa qof weyn haddana wuxuu u dhaqmaa sida oo maaragtay dad oo aan dadka ah oo jeeda ولا إظهار روائح ديبها iyadoo aan hadii carafteeda ay wixii aan muujinayn dhar adag ku socota ay baxaysa jidkana intii uga soconay marka jidka meel ku leedahay tusama وتمشي في حافات طريقة في حافات الطرق wadooyinka geesooda ayay ku soconaysaa وجوانبها دون وسطها وجادتها dhexbartamaha ma ku soconayso ilaahay subxaanahu wa ta'aala shay walba kala xadiis iska dhaaf xataa socodka jidka inta laga maraa raggu dhexda ha mareen dumarkuna gees ha mareen way socotaa gabadha way soo baxday dabcan daday la hadlaysaa say u hadlaysaa wain kallamat ajnabiyan aqladat fi sawtiha lahu min gayri liin wa khudur haddii ajnabi la hadlayso hadalkeeda ma ka dhigaysa laakiin hadal noolay ku hadlay niqniiq ahayn oo laxaw la damci karo ma ku hadlayso ilaa allahuma inay la hadlayso dhahay nin saalixa oo iyaduna dan iyo diin inay weydiistay igu timid oo marka hadalka u damcinaysaa iyadoo weliba aan tarqiim iyo maaragtay aan jilcinin hadalkeeda si caadiya ayuu hadlaysa laakiin ninka ajnabiga wax loola hadlaa si hadalka oo macnaha oo kow camal hadalka saaka inta ninka war waa fiicnaa alxamdulillah waa fiicnaa hadal kow ah hadal mugta xoogaa la bisleynayo ama la qamiirinayo ma jiro saas lama rabo waxayna kala hadlaysaa haddii suurtagal tahay min waraa'i xaa'ilin wa min isaarin aw sitrin aw xaa'ilin haddii suurtagal tahay waxay kala hadlaysaa meel asaga aysan isku muuqan intaasoo dhan waxay u samaynaysaa u dhahay waxay u samaynaysaa imtisaal amri shar sharciga inay fartoonto iyaduna ay fidna ka nabad gasho dadkana ay safirnay
wuxuu sheekhu waxa xaraam ka ah gabadhu inay nafteeda fidna u bandhigto. Fidna say ugu bandhigay markay catar marsatay banaanka u baxdo ama dhar aan caadi ahayn ay qaadato, cid walba soo fiirinaysa oo guri ka gelaya oo jiran oo dhan ilaahay dhan isku imaanaysa. In dadka fidnaysa ama idii fidnoodo ama lagu fidnoobo waxa weeye ayaa ilaahay ka xarimay. halka wuxuu keenay mas'ala kale ma yajibu ala waliy min ta'liim al-mar'a. Ayaa laga rabaa maxaa laga rabaa marka ninka waliga gabadhaas maamula maxaa laga rabaa arrinkaas oo dhan inuu baro. intaas oo dhan inuu baro. qowl iyo ficil ba uu baro oo caado uga dhigo ayaa laga rabaa. wadaha yarka xilliga ay qabashada leeyihiin wax loo sheego la qabto. dadaalka ilaahay subhanahu wa ta'ala ama wuxuu ka dhigi doonaa ama adiga inta dadaal ba lagu faray qofkan hanuun qalbigiisa gelimo kariis adiga adoo dadaalay oo wax kala noqon kara adoo dadaalin hataa marka qaar qof iska noqdo inuu aanu iska noqdo ilaahay iska diyaarsho iska noqdo mana isku xirad dadaalka iyo inuu qofku wax noqonayo adoo caalim ah oo u dadaalay oo cilmi iyo wax walba oo la fadhiya ayuu xaq ka baxay adoo aan jaahil hal xaraf ku kordhinayn aad arkaysaa asagoo ceel maartay ka soo cabaya oo asoo iimaanay adoo aan tusin ajiib leh diin iyo khayr xambaarsan marka waa shay dadaalka laakiin meesha marba ku jira dadaalka waa lagu farcadiy miraha adiga laakiin mas'uul kama miraha Allah subhanahu wa ta'ala iska